labada kun iyo labaatan iyo labada وهذا بوا قلبت لبضكم إلى ما تنسى تحدا صوص سينبه أنت قلنا مو فاكر تبلدك يا برنامج كذا عالم شوف تتابعين المشهد نبض الآن كذا عالم أما اللي سكوفر صار هاو ملايين قالوا النبض يا كجورتي مركام كلات أركي كجرنا يا كذا أنت صدقوا قدموا ولكن عرفت سيسي EFPP أتلت سودو هذا كعمل فرن وكسودو هذا فيديو كان محن أقول لك عليه ما دام لبضكم إلى ما تنسى تحدا قرش بدن عليه أو يفرتين إن يعني يقول كساد قاعد wixii ka hor istaagi lahay waa labadaas oo ah inaadan go'aan rasmi ah la imaanin iyo in ay ka maqan tahay yani waxyaabaha ka hor istaagi lahay in laga hor wareejiyo haddaba midii ka hor istaagi lahayd inaad ku dhaqaaqdid ayaa maanta ka hor wareejina laakiin go'aanka adiga laga rabaa haddaba waxa xaqiiqo ah wax walba oo rabno inaan gaarno ama guul walba oo gaarno inay naga hor istaagsan tahay daal fara badan inaan la kulanno daalkaas oo fara badan oo waxyaabo badan ay keenaan mid ugu muhiimsan ayaan video ku soo gudbinaa insha Allah horta wax dhan oo daalka sabab u hurdo la'aan hadaad maqshay daal waa hurdo la'aan iyo xaalad caafimaad labadaas bis sababto wax kale ma sababaan xaaladda caafimaad naftirkeeda laba ayay noqotaa mid laga gaari karo oo wax yar aad ka qaban kartid iyo mid xaalad dheer ah oo u baahan dhakhtarka inuu in badan oo kula socdo waxyaabo badan la sameeyo qaliina ama martid iyo ayadana waa ku soo gudbin doonaa dhamaadka video ku soo gudbin doonaa daalka sida caadiga lifestyle-ka hurdo la'aanta keento hadda ku sharaxa marka ugu horeyso hurdo la'aanta lifestyle-ka keento waxa kamid ah marka xilliga hurdada ay soo dhowdahay ina waxyaabo kafeyn ku badan yahay aan isticmaalo like anigoo kale to training garay laga yaabo ina wax kafeyn ku badan yahay aan isticmaalo awado dhan hurdo aan u soo kacay waxyaabahaas midda labaad ayaa waxay noqotaa in balwad dadka leh oo yaqaano balwada dadka isticmaalo nikotiinka waxyaabo ku badan yihiin way soo kacaan badanaa hurdo fiican ma helaan waxay ku fiican tahay kafeega kafeynka iyo balwada in xilli hore la isticmaalo hadii ba laga maarmeenin hadii xilli dhow ay isticmaashada hurdada markay soo dhowdahay waxay noqonaysaa markaas hurdadaada inay la falgasho waxyaabo kale oo lifestyle-keena kamid ah waxay tahay in markaas cunto badan aan cunay oo seexan karin ما لا ساحة كنا علوش يعني حنون يسوع أنا كده نقول تفي عن مهلينه سليم مود كجير كمجلايو جير كده أنا كوالينا تاسنا وامد لايف ستايل كوحكة لتو كميدا إن أنا شركة إيو أنا كسوجينه لايف ستايل كوحكة لتو كميدا إن أنا بروبلم أنا كفكرينه تاسنا واحد إيه كنا بريتا يعني حالنا ساعات واحد اللي يجيب waxa walba daaqadina ka turtid ayaa haboon ayadana midda kale to lifestyle-keena kamid ah waxay tahay marka in anaka aan go'aansan inaan dhafarno ay maxaa ka qaadi kartaa waa waxbana adaa go'aansaday inaad dhafartid subaxdii shidaal mariyid waa buushida la'aan oo shidaal waaya tahay wafan soo marka taas adiga kugu xiran tahay lifestyle-keena waxa kale to kamid ah mararka qaar in maalintii aan habeen u bedelnay habeenkiina maalintii aan u bedelnay yani go'aankeena waa taas wali dhafarkii ka dhigantaa laakiin maalintii oo dhan aan jiifnaa dadna maalintii wali wuxuu isku dayay waxay kalifaysaa marka shaqadii iskuulkii nolol maalmeedkaada wax walbaba inaa markaas aad daalanta hamaansanaysid tacbaan aad tahay haddaba intaas oo dhan kasoo gudub lifestyle-ka waxaa u gudbaynaa hadda waxyaabaha caafimaadka waxaa keena laba arrin mid waxaa waaye d vitamin yaanka ama birta saa u taqaanid ama magnesiumka waxyaaba sudada caawiyo dhan in jirkaada ay ka maqayeen waxaa kaleeto keeni karo daalka faraha badan leh in dhiiga casoo kugu yar yahay ama dhiiga guduudan taasoo keeni karto hurdo la'aan inay kugu dhacdo dhakhtarkaada la kaasho wax yar oo wax laga qaban karo waxyaabahaas oo kaleeto biyo badan nacab waxaa kaleeto lifestyle-keena hadda dib ugu noqdo kamid ah in guriga jirkii oo dhan guriga isaga jirtay oo jirka activity uusan helin ama hawo fiican aadan soo helin hurdo fiican ma helayso marka inaad iska seexataan xilliga jibka laga laakiin jirka madaalana taasna waa midda kaleeto ee xaaladda caafimaad ee xaqiiqadan dad badanna ee heeso oo halisna ah laakiin dadku aysan halis weysan waxaa kamid ah waxyaabo la yidhahdo soba ama iyo in sanka hilib uu kaaga yaalo oo quurisid ama aysan ahayn sanka gudaha dhanka dhuunta iyo iska galaan inay quurisid oo hilib kaaga yaalo ama neef mareento kaleeto inay waxyar qalooc ku jiro oo markaas u baahan tahay dhakhtar inuu ka xalliyo so waxyaabaha kaleeto dhan waa la xallin karaa laakiin midda aan la xallin karin waxaa waaye sleep apnea ama sobabna midda la dhaho oo ah neerfaha inuu signaal soo dirayo neefta inaad celisid ee kugu khasbaysaa maxay hurdo la'aantaas marka dhib kuu keysanaya waxay kuu keysanaya marka neeftaas aad celinaysid jirkaadii inuu oxygen helin oxygen ku filan murqihi ma nasanayaan unugyadii howlgabay noqonayaan waayo oxygen ku filan ma helayaan wadnihii dhiiggii ma sii qaybinayo taas ayaana kalifayso in hurdo la'aan ay kugu dhacdo hurdo xun kugu dhacdo habeenkii oo dhan aad jiifta madaxa ku xanuun oo dhuunta ku xanuunaysa soo kacaysa taas aniga ayay igu dhacday aniga waayihii ugu dambeeyay taasoo dhan la dhibtoonaay jirkayga dhan muxuu ahay murqihi waa soo training garaynaa ma helayaan oxygen ku filan ma kala baxayaan ayaga dhan
muruqii meeshii ku adkaanaya oo kaliya markii ugu dambeysay la soo saaray daalka farabadan ku keena waxaan waa lagu dhaasay in isku koysa inaad training gareysid mashiinkan isticmaal haddaba mashiinkan aan inta ugu jeedinayaan isticmaalaa sanka ama afkan ku xirta habeenkii oo dhan saasaan ku jiifaa taasna waxay iga saacidaa markii oxygen ugu filan inaan helo alxamdulillah wax badan ay iga bedeshay dad maraan idin soo sharxi doonaa insha Allah qaabka loo isticmaalayo waxyaabahaas dad badan oo laga yaabo inay isticmaali doonaan laga yaabo ama dhibkan oo haysto ayagana arki doonaan laakiin ha ka cabsanina waa arrin wanaagsan markaas ayaa oxygen ugu horeysay waana ka caafimaaday alxamdulillah xanuunkii kama caafimaadin laakiin dhafarkii daalkii waa ka caafimaaday alxamdulillah haddaba walaalahayga qaaliga waxaan rajaynaa videogan inaad wax ka faa'iideen si 2023 goolkaada aad u gaartid natiijadaada aad u gaartid waa walaalkii caafimaadkiisa oo mar walba kula jecel inaad gool gaartid garabkaadana taagan wax ku anfacana inuu kuu soo gudbiyo jecel comment igu soo reeb haddaad u baahan tahay mashiinkaas kale inaan si fiican usoo faahfaahiyo qaabka aan u isticmaalo iyo waxa dhan intaan videogan video lamida ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa guri gubannimo dheedheel laguma dhismayo waa loo dhigtooda Zii